bulshada Soomaaliyeed ee ka dhiidhiyay dulmiga noocaas ah waxaanan arintaas iyada tusaale uga dhigaynaa iyo tilmaan inta aanan ahayn reer Hiiraan iyo reer Galguduud ee dhibaatada ay ka dhiidhiyeen iyagu wali ku jira ilaa meel shabaab joogo oo aan lagu dhibanayn ma jirto meel shabaab joogo oo aan dad lagu dilin ma jirto meel shabaab joogo oo aan maal lagu dhicin ma jiro meel shabaab joogo oo aan cirdi lagu xadgudbin ma jirto meel shabaab joogo oo aan ilaahay looga been sheegin ma jirto meel shabaab joogo oo islaamka lagu soo radxumeeyeen ma jirto meel shabaab joogo oo dawladnimada aan lagu weeqin ma jirto marka maadaama dhibka noocaas aad qabtaan tilmaan waxa idin ah reer Hiiraan iyo reer Galguduud waxa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii qeyrkii loo xirayo adiguna soo qoyso dambi ay galeen ma jirto dakana kama wataan shabaab dulmi uma aanay geysanin waxay isku hayaan kaliya waxay tahay diin ma haysataan iyo muslim baan nahay dumarkiina waa noo xalaal iyo xalaal idin ma aha ubadkiina waan qaadanaynaa iyo qaadan maysaan maalkiina waan dhacaynaa iyo dhici maysaan intaas la isku hayaa haddii marka intaas looga aamuso haddana ku dayn ma hayaano ciday doonaan waa dilayaan waana biraynayaan saa darteed waxa reer Hiiraan ay u kaceen waxay tusaale u yihiin cid walba oo ku hoos nool dhibaatada shabaab xaq saarana wuxuu yahay waajibka ah oo laga doonayo inaanay ogolaanin xadgudubka noocaas ah inuu ku socdo maxaa yeelay damar walba naftu waa baxaysaa cali dhuux waa tii laga wariyay inuu yiri kaco oo dhidibka rida waa tood dhiman weedaane in la iska dhiciyo shabaab looma dhinto wadba loo dhintaa likulli ajalin kitaab وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا iska dhicin ma ogiye si kale oo looga adkaan karo sidii uu nabigu sheegay sallallahu wasallam alayhi ma ay jirto waxay hanbeynayaan male xoolaysan u naxaynin oo bahaahin ah oo duurjoog ah oo ceelashay burburinayaan ribaadiyaysan u naxaynin carubaysan u naxaynin maati iyo dumar baysan u naxaynin waayeel baanay u naxaynin oday maxaa la yiraahdaa boqol jiraysan u naxaynin dadka ileynayaan markaad aragto nooca ay yihiin qofka dhowranaya wali oo isla armay adiga ku daayaan oo doqonino saadaradeed waxa ay ka dhidhiyaan dadka iyaga ah reer Hiiraan iyo reer Galguduud baa loo baahan yahay Soomaaliya intay u midowdo inay waxa weeye iyaguna ka dhidhiyaan Soomaaliya caqabada haysata dawladnimadeeda hortaagan mar kale in cagaha la isku taago hakadka looga jiro waa shabaab weyn cidii maanta awood u yeelata inay shabaab iska caabiso oo iska dhiciso taariikhda Soomaaliya ee xoreynta ah qayb ay ku leedahay cidii ka baaqsata hadda waxa weeye laba ceyriinka ku qaybsatay biseelka iskuma cawridaa la yiriyo hadhow toora libin loo soo wada ordo meeshii ma ay taalo maanta waa maalintii libinta la dharin lahaa waa maalintii la isu taagi lahaa sharafta waa maalintii mar labaad la isu taagi lahaa Soomaaliya in laga xoreeyo cadawga horarka ah oo sida bahalnimada ummadda u baabi'inayo